fanaankii ragga iyo dumarka iska sida uga oysiiyay oo nala hadlo oo welibana intuu baylood soo hor fadhiistay hadalla ku mankan kugu suuray madahanan farxadan ku magaabshay maadayn wanadan kugu miisay mad maqal wanadan kugu miisay mad maqal idkalaan isku maranay maadoo nabidka adanka maarmay maado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا داود يال سود وهذا ومركلة إيه ولكن آذن كرامة هلك طبعا قفير سنة سنة وبرتن يوتيوب كل آذن كرامة هدي أي تاي مركي يقول رئيسي آذن صواب وقد تفضل سبسكرايب تاني وشرف إسلام مركن الريح كمال لك عاسية يكوسو قاران دعوين كي مقالدة كلا دوين لكن كسو قد منه هدي أدهورين ونشوكتنا عادي أدبض مع سنتها هي مقالك لايكتا فضلا لايكتا كسي قبتا أو سي باهية سي وقارب فنان كعانكا ماما يري محمد عمر صالح وماما يري كما قاعدير واه نيكا شيكاديسا اي هودو هورو usoo sheegtay محمد ماما waxa uu kamid yahay kooxda waqtigan calanka u sida fanka Soomaalida ee dayaxbaan oo ka dhisan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo maama oo ku soo dhaweeyay TV Horiyaal waad mahadsantahay Cabdiqani aad baan ugu dhaweeyay TV Horiyaal bal maama intayna waxa weeyaan heesteena iyo qisada heesta toona aynaan u guda gelin oo mawduucu gaariyahay bal magaca maama yare maxamed baa tahay hadana maama ayad aan ku tahay magaca maama yare bal bulshada u qeex maama aad baad mahadsantahay su'aal isweydiin mudan muddo gaaraysa 3 bilood waxaan ku noolaa magaalada Jigjiga waxaan la deganaa qolo in xabashiya kadib xabashida ayay igu yar jirtay maame maxamed ka soo gaabin jirtay markaa haysto saasay ugu baxday bal maxamed toddobaadkan bixiisa waxaad qaaday hees saameyn weyn yeelatay marka la joogo Soomaaliya ahdiya isaga talowday qaarad waqti oo kooban guduhu ahdiya saameyn badan ku yeelatay bulshada Soomaalida heestaasi oo magaceedu uu yahay halkaadiga maagtay maangar balintayna qisada heesta u gelin heestan aad qaaday saameynta inta leeg maxaa uu yeelay baad oranaysaa niyo anigu fikir ahaantayda dadkeenan Soomaalida la yiraahdo wada bukaan waa wada bukaan socod waxay dadkan u baahan yihiin dawo yani dadka bilaadanka wax walba waa soo maraan qisooyin badan baa soo mara xaalada adag waa soo maraan laakiin waxaan aanu oran karaa dawadii ugu fududeyd helaan marka dadka oo cishka iyo caashaq waxa weeyaan u wada bukaan chief wada ayaa heestan waxa weeyaan ay dawo noqotay dareenkoodii baa qof waliba ku cabir heestan sida aan la socono waxa sameeyay abwaanka daadayar Maxamed Cali Shirki aduu fanaankii qaaday baa tahay exactly bal heestan qisada heestan sharxaan laga sii heestan sida ku timi iyo sababaha keenay waa sax qisadeeda in badan baan doonayna ka waramo laakiin maanta inuga faa'iideynaa ummadda Soomaaliyeed qisada waxa ku dhacday markii koobaad maalmaha kamid ah waxa dhacday wiil aan aad saaxiib u nahay ayaan habeenada kamid ah soo raacnay guriga igu yimi waan soo raacnay waxa ahayd waqtiyadu xaaladda adag ku jiray kadib uu ii waramay wajigiisan ka yar dareemay markii koobaad inuu qofkaan aqaanay qofka saaxiibtiina wad garanaysaa inuu qofkii yaqaanay iyo qofka taqaanay wad kala garanaysaa jawigu ku kala jiro marka hore nin aad u farxad badan buu ahaa qosol badan iska kaftan badan oo xaraabaad badan maalinka uu yimi laakiin wajigiisa waxa ka muuqday murug aad iyo aad u fara badan kadib waan waraystay waxaan ku saaxiib maxaa ku dhacay kadib qisadu iga sheekay wuxuu igu yiri gabadh baan jeclayn gabadhii aan waxaan wada sheekaysanay buu yiri muddo gaaraysa 4 sano aniguna waan ku ogaa kadib waxa dhacday wuxuu igu yiri gabadhii ayaa isaga wiil ay si saaxiib yihiin oo guriga wax ku wada cunayeen oo yani haduu maryaha xidho maryihiisa hadaan xidhay wada noolaayeen ayaa iyagoo 4 sano gabadhii wada sheekaysanaya ayaa gabadhii saaxiibkii ayaa ka qaaday
kadib waxaa dhacday in uu idhaa niyo saas iyo saasa maxamed oo igu dhacday kadib aad baan ula tacajabay waxaan u qaadan waayey gabadh uu saaxiibkaa ay wada hadlaan sababta u geysay saaxiibkiisan kale kadib iyadoo saas ahayd oo aan aada uga murugooday oon aada uga naxay ayaa habeenkii aduu jawigiisaan usoo saxay waan soo wareejiyey habeenkii anagoo isagoo faraxsan oo qoslaya ayaan kala tagnay kadib markaan guriga galay ayaan fikiray oon idhi niyo haadhe saaxiibkaa tabtaa ku dhacday iyayna ummadda soomaaliyeedna ku dhicine sayn uga hortagnaa baltalo kadib anoo sheekadiisa igu wareegeyso ayaa habeenada ka mid a ayuu shilkay soo garaacay shilkaan wada hadalnay ma fiicanta maasha allah ugu niyo hees baan doonaya kuu soo diray bal heestan sameeyey isla heestan sameeyey bal eeg waay baan ku uri markaa heesta caadiyaan u haystay anna sheekada qisadeena wata madaxa igaga jirta kadib heestan bay soo diray waa isla heestanuuna kadib ereyadii baan akhriyey mise waaba isla tabtii saaxiibkay ku dhacday waatan odhanaysaa maankaan kugu sooray maad hanan farxaddan kugu magaabshay maadayi waanadan kugu miisay maad maqan cid kalen isku maranay maad arag agtaadana ka maarmi maad odhan halkaad iga magtay maan garan kadib ereyadii markaasaa akhriyey iyo waaba isla qisadii saaxiibkay iyo tii ugu wareegisay maskaxdayda kadib waan aamusay laxankii baan lasoo saaray isla maalinkiiba waan tulnay muuqaalkeedaan duubnay saameynta ugu badanee xata alaan igu soo noqnoqotaa waxay tahay waxaad arkaysaa tiktokii iyo marka abwaanka intayna saameynta u tegin abwaanku isagu qisadu ka sameeyey markaa xog ma ka haysaa sababta mise maxay tahay niyow abwaan shilke maan weydiin waaya laakiin waxaan u arkay un qisadaan maskaxda ku hayay inuu adigu taasaad u qaadatay ha waaya saameyn badan bay yeelatay dad badan bay waxa weeyaan oo qaarkood ooyayaan baa isku soo duubay marka aad tagto baraha bulshada kala duwan la isticmaalo oo Soomaaliya haween iyo rag baa isugu jira ma la oran karaa codkii maama iyo heestii uu soo saaray waxay damaq u geysatay kale dad badan oo bukaan socod ahaa oo ishq iyo caashaq waxa weeyaan u ahaa ugu jiray bukaan socod u ahaa oo dhibane u ahaa ishq iyo caashaq baa imika waxa weeyaan doogihii hore uu dib ugu soo kiciyay oo nabaradii uu ku damqay codkaagaasi niyoomay waxaan aaminsanahay inay dadka dhaawacaa iyo dadka soo socday taasi ku dhici doonto inay dawlad tahay waaya Soomaaliduna wani ku sheegay wada bukaan waaya waa wada bukaan socod bal heestaa maamo heestaa bal iyada oo bilaa muusiya bal noogu celi imika in yar mankan kugu sooray madahanan farxaddan ku magaabshay maadayin waanadan kugu miisay maad maqal waanadan kugu miisay maad maqal cid kalaan isku maranay maad odhan abidka adanka maarmay maad odhan halkaadiga maagtay maan garan halkaadiga maagtay maan garan meeshaan kugu sugayay mada iman waxaan kugu mahadisha madafalin milgeheedii naftayda mada marin qofkii aan ku mooday mada noqon qofkii aan ku mooday mada noqon waka aad baad u bahadsan tahay maxamedow dadku waxay isweydiinayaan horta ma Soomaalida waxa weeyaan dad iska xiisoola ah oo toddobaadba heesta soo baxday cusub la qiirooda mise abwaan shilke ayaa heestan waxa weeyaan angal aan abwaanada iyo hal abuurka kale ee Soomaalidu iska taagay oo loo baahnaa bulshadu ay baahi u qabtay niyoomay anu waxaan aaminsanahay shilke inuu farshaxan cusub on hal abuurnimada ka duwan oo la yimi sababtaasana keenaysa inay heestu saameyn yeelato waayahay sidaynu la soconno waxa aad ka mid tahay kooxda xidigaha fanka Soomaalida waqtigan calanka u shida ee dayax baan horta adigu fanka inta ku jirtay imika waxa weeyaan shaqada fanka aad wadi wallahi dadku wax moodaan inaan in badan ku jiray
laakiin imika ku dhawaad 11 bilood oon ku jiraa 11 qura oo bilood baad fanaan tahay waaya de kulli dhalinyaro baa tahay oo waxa weeyaan aad u da'yar horta marka laga tago shaqada fanka xirfad kale ma leedahay hay sportskana isku fiicnay sport man baa tahay 11 ka bilood baad fanka ku jirtay reaction badan baa ka soo noqday ama baan idhaahdee falcelimo badan baa ka soo noqday heestan ugu dambeysay aad qaaday waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ama ugu saameynta badnaa falcelinahaas maxaad ka xasuusataa waxaan ka xasuustaa waxaan arkay dad badan oo muuqaalo ii soo diraya aan anigii ku tacajabay oon sirinayo maxaa niyo kugu watay dadkaad uga weysay waxaan arkay weliba saameyntu weliba ha u badnaato dhanka dumarka waxaa lay soo diray dad caadi tacajub ku keenaya caadi u ooyaya dumar badan oo barooranaya daniyo aniga ahaantayda de tacajub ilaahay igu keenay dee dabcan dumarkaa rag baa kaga oohisiiyey bal dumarkaa ragga kaga oohisiiyey maxaad ragga fariinta maanta u diraysaa ay tahay wallaahi ragga waxaan u dirayaa niyo dumarku marka koowaad haddaanu dumar jirin saaba mina qurqurux badnaaneen waxaan talo weyn u dirayaa dumarka saahan laga daayo hala ixtiraamo waa hooyadeen waa walaasheen waa kuween dhali doono yacni booskii noo taagan yihiin maanta haddaynu dumar jirin halkaa umaynaa soo istaagneen nin kastoo qurux badan aad aragto amba nin kastoo wanaagsan amba nin kastoo maanta magaalada Hargeysa maal kule dee gabadhun baa ka dambeysay amba hooyadii baa ka dambeysay amba walaashii marka taladan sidoo waxay tahay dumarka laga daayo dumarka la wanaajiyo dumarka ha loo roonaado taasan tala siinaya rag fankayga lambar 1 waxaan uga mahad celinayaa oo saameynta inta leeg ii sameeyay Cabdikariin Cali Shaah marna adeerkay marna aan isku koox ka tirsanahay hadda marna saaxiib nahay inta bas wada nahay isaga lambar 1 fankayga xaga soo gaarsiiyay waxaan kaloon iyagana aan u mahad celinayaa isna walaalkay Akram Maxamed Awaadan oo isna fankayga ugu horeyntiisna qayb weyn ka qaatay aad iyo aad ayaan u salaamayaa intaa dabcan aad xustayba aad iyo aad ayuu mahadsan yahay fanaanka Maxamed Cumar Saalax oo maamayare caan ku ah watahay daawadayaal haddii aad hore inoola joogtay waad ku mahadsantahay si joogitaankaaga madaxa ayaad inoo saaran tahay muuqaalka lay ku sii qabo haddii aad inagu cusub tahayna fadlan subscribe inoo saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka xiisaha leh halka ku soo gudbino tan iyo muuqaalka mid lamid ah oo walaalkan karaamada kaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nabadino.